بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان umada Soomaaliyeed meel walba joogto waa salaamaya salaan kadib wacyigelin ku saabsan coronavirus-ka ayaan ugu talagalay inaan mataqaanaa dila wadaago waxay tahay si aan ognahay xaaladda adduunku macnaha ma sahlana marka si loo eego dhimashada iyo xanuunka saameyntiisa dhanka dhaqaalaha dhanka caafimaadka dhan walba adduunka oo dhan inuu mataqaanaa uu ku jiro xiran oo nin walba meeshiisa uu ku xiran yahay inta marka laga yimaado cudurkan Soomaalida hadda kollay uu soo galay waynu ognahay dad baa u dhintay cases fara badan baa la hayaa inta marka laga yimaado wacyigelinta bulshada kow marka la leeyahay qofkas waa inuu gurigiisa joogaa macnaha ugu weyn ay yeelanaysaa waxay tahay badanaa cudurku dad badan oo bulshada qayb ka mid ayuu saameyn aad ah ku leeyahay oo dadka ah waayeelka marka la leeyahay gurigaaga joog ama haddii soo bixbixin ama dad bulshada la kulmin waxay tahay qofku inuu mataqaanaa qofkii waalidka ahaa ee guriga joogina inaanu u geyn mid kale suuqa joogina inaanu u geyn xogaa macnaha dadkii ay kala durkaan si ay u yaraato isku gudbintii cudurka sidoo kale lagu dadaalo farxalka iyo waxaas marka ujeedka koowaad waxa weeye dadka uu saameynta ku leeyahay ama dadka xanuunada leh in intii lala dadaali karo lala dadaalo taas waa mid tan kale waxay tahay in muxuu ahaayay cudurka lagula dagaalamo sida haddaba Soomaalidu inta badan ay kula dagaalamayso oo leeyihiin waxa hargab oo kala ah ayaa nagu dhacay oo ay biyo badan cabayaan nindanan badan shiidanayaan ama cabayaan ama cuntada ku tarsanayaan sidoo kale malabka sidoo kale sinjibiisha sidoo kale toonta waxyaabahaas oo maaragtay ay badsadaan waxaad moodaa in dhuunta ku dilayaan viruska marka guud ahaan haddii aad iska dareento iyo haddaadan iska dareemin ba waxyaabahana badso dadkaas aan xusnayna intii lala dadaali karo in lala dadaalo oo maaragtay bulshada kulli caafimaadka Ilaahay baa hayay macnaha inaga dadaal baa ina saaran marka bulshada guud ahaan inaan dadaalo farxalka ku dadaalo waxa weeye istaabashada iyo magaranaysa dadku inay istaabtaana aynu ka dadaalo dhamaan Ilaahayna badbaadiyo guud ahaan bulshaduna wacyigelintaasi meel walba mataqaanaa ay joogaan inay isgaarsiiyaan oo mahadsantiin